dhalinyaro la magac baxday ururka wacyigelinta bulshada gobolka Hiiraan ayaa olole isxilqaan ah oo ay kaga qayb qaadanayeen bilic soo celinta degmada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxa ay ka fuliyeen xaafadaha ay ka kooban tahay degmada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. warkan waxaa soo diray wariyahayaga Khalid Maxamed Ismaaciil Kacase. halkani waa kiliga dhagax jibis ee ku yaala xaafadda Nuur Xawaataako ee magaalada Beledweyne. ururka wacyigelinta bulshada gobolka Hiiraan ayaa waxa olole nadaafadeed ay maanta ay ka sameeyeen kiligan oo ah meel inta badan bulshada ku nool magaalada Beledweyne gaar ahaan xaafadaha Kooshin iyo Xawaataako ee qashinka ay ku soo daadin jireen. ururka oo ka damqanayay ololaha nadaafad darrada kiligan isla markaana haysata dadka ku nool xaafadda Xawaataako gaar ahaan laanta dhagax jibis ee degan nawaaxiga kiligan ayaa waxa ay markii ugu horeysay ururku ay ka sameeyeen olole nadaafadeed waxaana maalmihii ugu dambeeyay ururka olole nadaafadeed ay ka wadeen magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. gudoomiyaha ururka wacyigelinta bulshada gobolka Hiiraan Cabdirashiid iyo xubno ka tirsan ururka ayaa waxa ay faahfaahin ka bixiyeen ololaha nadaafadeed ay ka wadaan magaalada Beledweyne iyo waliba kuwan maanta ay halkan ay ka sameeyeen. maanta ay soo gaarno xaafadda Xawaataako oo laanteeda dhagax jibis meesha aan joogno waa kiligii dhagax jibis ee maraayay kiligii weynaay dhagax jibis wiiga markuu soo fataho ama xayaato magaalada u gudbinayo biyaha waxa qashin yaala waa u jeedin dadkan xaafadaha degan oo naga soo gaartay cabasho aad u badan oo xayaato ka cabanaya qashinka tirada badan oo lagu soo shubayo xayaato kiliga maadaama oo keena qashinkaas in xayaato biyi xirxirmaan ay biyahaas ay kiligi mari jiray inay xaafado u gudbaan. marka ururka wacyigelinta bulshada iyo horumarinta gobolka Hiiraan oo ah urur samafal ah oo dhalinyaro ka shaqeeya gobolka Hiiraan degmada Beledweyne ayaa waxa uu istaagay si isxaqaan ah inay maanta qashinkaas ama geedihii ama carada bixiyaan kiligii ayagoo xayata gaashanayo dad xayato xayata ganacsato ah oo xayato nagu caawiyay maanta baabuurta aan ku shaqeynayno. alxamdulillah marka hore ilaahay maad iskala waxaan leenahay reer Beledweyne ha u istaagaan inay nadaafadda ku dadaalaan iskana ilaaliyaan waxyaalaha keenayo inay xayata biyo baxada degdega ah ee magaalada soo gasho. waxa biyo baxada degdeg keena waxa kamid ah qashinkii oo lagu soo shubaa meelihii ay biyo mar lahaayeen. waa ujeeda marka hadii inta biyo qashin loo shubo inta qashin loo shubo inta ciid fadhiisto biyaha meel maramala waxay u gudbaysaa inay si fudud xaafadihii ama xayato magaalada u gudbaan. marka alxamdulillah maanta anigu waxaad baalayaashii ama gaadidii soo wadanay waxaan sameeynay inaan qashinka qaadno ciid bixino geedihii yaalay wasaqda ka bixino insha Allah taala intii karaankeena ama xayaato awoodeena insha Allah wasi wadayna dadaalkeena. maanta meesha ku sugannahay oo ah xaafadda Xawaataako gaar ahaan laanta dhagax jibis kiligan aad u weyn runtii hool adag ayaa taalo meeshan waxaanu arkaynaa kiligu inuu ka buuxo qashin aad u fara badan kaasoo laga kala keenay meelo aad u kala duwan. waxaan ugu daranoo aragna waxay ahaayeen maanta inta sameeynay ololaha nadaafadeed qaybaha timajaraha dadka leh goobaha timajaraha timaha loogu hagaajiyo waxaan u soo jeedin lahaa baaq ah iyo codsi isugu jiro inay maxay ahaatay timaha marka ay jaraan yacni u sameystaan meel u gaar ah ama meel ka baxsan deegaanka ama meesha hadda keenan. sidoo kale waxaan baaq u soo jeedin lahaa dadka la farmashiyaasha ama goobaha lagu gado daawooyinka ayaguna waxaan aad iyo aad ka codsan lahaa inay yacni ilaaliyaan nadaafadda deegaanka bifadlan walaalayaal dadka ganacsiga leh gaar ahaan sidoo kale dad kale meelaha lagu dhaqo gawaarida ama labeejooyinka ayagana waxaan ka codsan lahay inay ilaaliyaan nadaafadda deegaanka sababtoo waxaan arkaynaa waa meeshii labaad ee aan arkayno oo ay ku taalo labaajo oo qashinka aadka ugu farada badan yacni lagu soo daadinayo. dadka degan xaafadda Xawaataako gaar ahaan laanta dhagax jibis ee uu ku yaalo kiligan ayaa waxa ay aad u soo dhaweeyeen ololaha nadaafadeed ururkan isxilqaamay ee ololaha nadaafadeed ka sameeyay kiligan taas oo sheegeen in dhibaato badan ay ku qabi jireen. maanta waxaan noo farxada in ay soo gaareen ololihii nadaafadda ay wadeen ururka wacyigelinta. runtii aadan ugu mahadcelinaynaa nadaafadda waa nolosha barkeeda. waxaa meesha ooli jiray dameero baktiyay xoolaha baktiyay aadan u soo dhaweynaynaa waa sugaynay ololaha nadaafadda ururka wacyigelinta waa soo dhaweynaynaa. halkan waxa lagu daadsaa cirbadaha iyo tinta iyo neefkii baktiyay
wax kasta ayaa lagu daadshaa isla markaas waxay u baahneed in wax laga qabto waan soo dhaweynaynaa qolada wax maanta wax ka qabanayso Khalid Maxamed Ismaaciil Kacse telefishinka caalamiga Soomaali News Beledweyne